zamzam iyo saaxiibadeed waxay xambaarsan yihiin fikir ah in Soomaaliya si guud wax loogu qabto dhinac walba ay tahay mudane gudoomiye waxaan ku leenahay ku soo dhawaaw wadanka Norway cashadaani maartay oo soo qabaqaabiyay xafiiska Norway hay'adda Zamzam Foundation waana cashadii ugu horeysay intaan la eg ay Soomaaliya isugu timaado nasiib ay u yeelatay cashadii ugu horeysay iyo maantikaadi annagana farxad iyo waxay noo tahay wanaag badan marka waxaan ku leenahay mudane gudoomiye ku soo dhawaaw mar labaad iyo mar saddexaad وانا ما سنتين دمان سيدا والنمada xushmadana cashada ugu soo qayb gasheen waxaan daawadana film aan already kugu sheegay qadar daqiiqada ah si aad u fahamtaan Zamzam waxa ay tahay briefly iyo waxa ay qabatay waxay af in laga hadlo waxa ka qiimo badan wixii aan qabanay inaan idin tusno aad u mahadsantiin to respond to the humanitarian fight continue to cause human suffering and the death and displacement of many innocent populations. intaasi waxay ahayd waxqabadkii hay'adii markii la aasaasay 1992 ilaa 2010 marka waxa laga yaabaa in la isweydiinayo abaartii ugu badneed 2011 dhacday maxaa loo diyaari waayay marka waxa waaye computerkii shaqada qabtay socdo marka asaga sheegi doono waxqabadkii 2011 sidee u dhacday iyo abaartii intee la ekeed وانا صوت العوانك عشرة أوجد جنيه عبارتي صومالي كذا علي إسلامتي كل ربتي ضدك تمرت الحين. ويعي واحد أنا كراشي بالنومي وحن مركز كوراد مهر بلان وسجلنا سامسون فاونديشن خاصة حفيز كذا مسلم قدوميها إبراهيم أودا. مثل هذا وحان نمط علينا dadka boorka fadhiya xildhibaanada saaxiibka maxamed almi iyo chairmanka board chairmanka maxamed axmed oo nooga yimid muqdisho martida noogu marti sharafka waxaan ku leenahay soo dhawow aad baan ugu faraxsanahay maanta in la joogtid waxaan siinayaa xagga gabdhaha magaceeda aawa waxaan noogu hadli doonto xaali marweynay mudanayaa sharafka inooga soo imaatay waddankeeni sharafta lahaa siiba haddana waxaan marlabaad ku celinayaa maxamed axmed walaalkeen inooga imaaday maaragtay waddankii hooyo inuu intaas hoosan kasoo shaqaynayay haddana madaxda ka ah ayaan aada soo dhaweynayaa aan leenahay soo dhawo anoo ku hadlahayaa codka haweenka Soomaalida codka maaragtay shacabka Soomaaliyeed ee Norway intaba wax awada meeshana laga tusay wax caadi maaha niga walba taageersanay soo dhaweynay kaalin fiican oo mugle diyaar u nahay inaan ka qaadano soo dhaweynta iyo xafiiska halkaa laga furay Zamzam haddana wallaahi caawa wax dhiirigelina dhalinyaradaasi waxay qabteen jazaakum allahu khayran leenahay waa soo dhaweynaynaa dumiyana waxaan leenahay soo dhawo walaal Norway waatana oo ku soo dhaweynay حفيز كان إن شاء الله تعالى ونهار مرنا ونهار بيتنا ونكون حرتهم وحصل يا رب يرضى هذه البوداي القصير بصير نبي يرمى لك عاوح ماشي حدين سودوينتا قدوميها شورى زمزم محمد أحمد محمد علينا وصلك سودوم سنسمع عنه كفالة عن ما عمل كبير يسوي شقينا إن لو ده كل لحدي لا هذا هو شقينا وأنا كفرح سنة هاي ما أنا وشوفنا رسول وصول بقتي إنجنير فاضل على مدر وحلبان كل هالدجاج واصل إذا كلام عاو حفلة إذا نقص قلب الشمال كما العلينا فاضل قف واحد بدل كقوة تعرف صومال وأنا دريم كتاب عدك المقلة إن معناها أي سنة هنا عد سهلة وحكوا شو وحي أمد وقبتين وأنا فرح سنة عاو حفلة إن اللي جوفت كلمة إذا نسينا إذا عاو حيال كانوا فردا مقع السياسيين في النرويج على عادي قلتها فرحة وين وأنا أنت شركة قلب قليتي يقول فرحة وين إذا كقلب قلورنتي sababta ay tahay waxa weeye hay'ad dadka Soomaaliyeed ee tabaalaysan xuquuqda
waxaan jeclaan lahaa in hay-adaha ka jira Soomaaliya iyo meel kastoo Afrika ee maaragtay United Nations wadato dhan inta laga ururiyo kuwan lagu wada bedelo aad baan soo dhaweynayaa Samsam markii ugu horeysay aan bartay hay-adan Samsam Foundation waxaa ii yimi ninkan lagu naanayso boodaaye maxamed la yidhaahdo Ibrahim Maxamuud isla markiibana waxaan arkay waxqabadkii ay ku tallaabsadeen oo ahayd markii abaaruhu dhaceen waxay haayeen hay-adihii ururinayeen weydin lacagta reer kalooska la shaqeeyey muddo maalina baa lagu ururiyey 100,000 dadka Soomaalida oo dhan way ka qayb qaateen hase ahaatee dee iyagaa soo abaabulay idinku waadna taageerteen kursigiina waan ku fadhiisanay dee tallaabadii labaad maxay tahay marka maxay noo soo kordhay baa isweydiin leh marka hore waxa weeyaan 5 guddi bay ka kooban tahay annaga waxaana lagu daray 3 guddi saddexdeedii Soomaaliyeed guddida koowaad waxa weeyaan guddida caafimaadka iyo waxbarashada gabadha ubax la yidhaahdo lagu daray May Baasha ayaa fadhiya halkaas guddida labaad waxa weeye guddida gaadiidka iyo biyada waxaa fadhiya ubax anigana guddida qorshe ugu dambeyn warku waa dheeraaday cashadii waa soo dhowdahay waxaan idinka dhex baxayaa waa idinkii ustaad maxamed axmed beere boorka ugu sarreeya hay'adda Samsam oo booqasho noogu yimid dalalka Scandinavia-ka caawina jooga dalka Norway halkan waxaa kugu dhan jaaliyadii intay ka koobnayd dhaqan odayaal haween waxgarad aqoon-yahan ganacsato sports waan soo dhaweynaynaa ustaadka idinkana aad baa u mahadsantihiin بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ugu horeyn xildhibaan Faadumo Madar odayaasha jaaliyadda Norway dhalinyarada madaxda ururada bulshada bahda saxaafadda madaxa xafiiska Norway dhammaan marti sharafka kala duwan caawa halkan igu soo dhaweysay waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u mahadcelinayaa dowladda Norway oo runtii gacan weyn ka siisay dadka Soomaaliyeed sidii ay ugu noolaan lahaayeen dalkan soo dhaweysay wax badanna u fududeysay sidoo kale dadaal xoog leh ugu jirta xal u helidda khilaafaadka siyaasiga ama xal u helidda dalka Soomaaliyeed oo dhan walaalayaal runtii Zamzam Foundation waa hay-ad samafal oo wadani ah sidaad ogtihiin walaalayaal waddankeena dhibaato badan baa ka dhacday goobjoog ayaad wax badan u tihiin ood ogtihiin laakiin haddaan si kooban idinkugu soo bandhigo intii ugu dambeysay oo runtii la iga codsaday inaan ka sheego halkan abaartii hadda ugu dambeysay oo runtii lagu tilmaamay sida aad akhriseen ama maqasheen ama aada la socotiin dhammaantiin 60 sano ee lasoo dhaafay abaartii ugu ba'need ee ka dhacday Soomaaliya inay ahayd waxay ahayd runtii abaar ballaaran saameysay dhammaan Soomaaliya ee aan ka tegin waxba ka tegin bay ahayd runtii arrintaasi xanuun badan ayay runtii u geysatay dadka Soomaaliyeed waxay gaartay xaalad runtii dhimasho iyo barakac iyo darxumo iyo rafaad badan oon la soo koobi karin laakiin ilaahay mahadiis waxaa ka dambeysay ilaahay naxariistiisa oo ballaaran oo waasaca ah roobkii dayrta oo ugu dambeeyey hadda si fiican u da-ay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu barwaaqo siiyo dadka Soomaaliyeed wixii igu daraa aniga markaan ka hadlo dhibkaas intuu jiray dareenkayga iigu ba'naa oo aan la kulmay si gaarna ii saameeyey wuxuu ahaa nin oday ah oo ka yimid
magaalada buulo burto ayaan la kulmay oo 70 jir ah xafiisku noogu yimid ninkaas waxaan weydiiyey maxaa dhacay meesha aad ka timid ee gobolka maxay saameyn u geysatay abaartu waa nin 70 jir ah sheekha waaweyn wuxuu yidhi 70 sanaan jiraa waxaan weligay taariikhda isoo marin ayaa isoo maray buu yidhi sanadkan maxay tahan ku idhi wuxuu yidhi dad dhimanaya oo oon iyo baahi u dhimanayo oo aan dul taaganahay waxna aanan u qaban karin oo aan isaga tegay ayagoo meesha ku dhimanaya taas ay ugu daray buu wixii soo maray waxaad dareemi kartaa marka xanuunku inta uu la egyahay marka aad dul taagan tahay qof bini aadana oo dhimanaya oodan awood u heli karin gaajo u dhimanaya ama haraad u dhimanaya awoodna aadan u heli karin inaad siiso wax aad ku badbaadiso dareenka runtii iigu culus wuuna ooyey markuu ereygaas ugu yiri ninkaas odaga ah dareenkaas wuxuu ahaa dareen dareen runtii aada u taabanayo qof kasta oo damiir leh ayuu ahaa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuusan dib ugu soo celin dadka Soomaaliya dhibaatadaas walaalayaal haddii aan kusoo noqdo hay-adda Zamzam waxay ka shaqeysaa howlo ballaaran oo ay ugu horeeyaan waxbarashada caafimaadka biyaha nadiifka ah agoonta iyo dhammaan samata bixinta dadka dhibaataysan waxaan u baahannahay runtii aniga oo abiil usoo qadimaya caawa jaaliyadda ballaaran ee Oslo inaan helno dad badan oo sida hadda xildhibaanadu sheegtay jaamacadihii baa lagu jiraa waxbaa la bartay dalkii in lagu soo celiyo dadkaas wax bartay ma dhahayno ha lagu caasiyo reer Norway abaalkooda waa la gudayaa waxay ka shaqayn doonaan insha Allah xiriirka dhow ee walaalnimo ee saaxiibtinimo ee sokoyeynimo ee ka dhaxayn doona insha Allah markii Soomaaliya ay kusoo noqoto khariidada caalamiga si dhab ah ay u noqon doonaan insha Allah arbixiyeen waxay noqon doonaan safiiradii waxay noqon doonaan insha Allah dadkii ugu muhiimsanaa calaaqadaas laf dhabarta u noqon lahaa laakiin waxaan ka codsanayaa walaalaha reer Oslo inay gacan sida ay ballan qaaday xildhibaanadu idinkuna aad wada ballan qaadeen inay gacan ku siiyaan xafiiska Zamzam ninkaas dhalinyarada ah oo la sheegay intuu la muuqdo ka weyn yahay in gacan lagu siiyo hawshiisa insha Allah anaga waxaan doonaynaa inaan isla garab taagi doono wax alla wixii aan awoodeeda leenahay aad iyo aad mahadsantihiin aad iyo aad baan markaas ku mahadcelinayaa aad iyo aad baan runtii dareenka fiican oo aan kala noqonayo Oslo waxaan u gudbin doonaa insha Allah dhammaan dadkii asxaabtii iyo walaalihii kale ee jiray dhulkaas insha Allah salaantiina waan gudbinayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh